السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaada dhamaantiin asxaabta ku xidhan Kaabe Technology and Language. aad ayaan idin salaameynaa meel kasta joogtaan. waxaan idinku salaameynaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. ku soo dhawaada cashka caawa oo aad u xiiso badan maadaama ay cashku yar habsaamay hawlo jiray awgood. waxa weeyaan caawa waxaan idinku soo talagalay lesson 32 jobs mowduuc ku saabsan waxa weeyaan shaqooyinka dadku ay qabanayaan, waxyaabaha la qabto, dhammaan shaqooyinkii oo dhan intaynu ka gaari karaynay ayaan soo ururinay maanta. cashkan gudihiisa ayaad kaga bogan doontaa dhammaan shaqooyinka kala duwan ee ay dadku ay qabtaan. asxaabta meel kasta joogtaan waan idinka raali gelinaynaa intii casharadu ay habsaameen. cashkan caawa waxaa lagu magacaabaa jobs, shaqooyin ayaa lagu magacaabaa. cashkan kii ka soo horeeyayna waxaan kaga soo hadalnay goal, ayaan kaga soo hadalnay hadafkii ama inuu qofku uu hadaf yeesho, ujeed uu yeesho, taas ayaan kaga soo hadalnay. su'aalo ayaan doonayay inaan iyagana ka soo diyaariyo oo aan doonayay inaan idinku soo weydiinayo moogtahay qof walba bal hadda mowduuciisa iyo shaqooyinkiisa, kuwaas waa ku tala jiray. laakiinse waxaan ka soo horeysiinayaa cashka caawa oo ah jobs, shaqooyin. what does a taxi driver do? maxaa uu qabtaa ninka taksiilaha ahi? muxuu qabtaa taxi driver? waxa weeye waa taxiga dareewalka ayaa loo yaqaanaa taxi driver. marka what does a taxi driver do? maxaa uu qabtaa taksiiluhu? muxuu qabtaa? he isaga oo taxiga ahi drives, wuxuu kaxayaa taxiga ayuu wadaa. what does a student do? muxuu qabtaa ardaygu? what does a student do? muxuu qabtaa ardaygu? he studies at school, wuxuu dhigtaa iskoolka ayuu dhigtaa. study at school, iskoolka ayaa ardaygu dhigtaa. shaqadiis waxa weeye waa iskoolka inuu dhigto. what does a teacher do? muxuu qabtaa macallinku? what does a teacher do? muxuu qabtaa macallinku? he isagu teaches, wuxuu dhigaa students, ardayda ayuu wuxuu dhigaa. what does a doctor do? muxuu qabtaa dhakhtarku? what does a doctor do? muxuu qabtaa dhakhtarku? dhakhtarku serves, wuxuu u adeegaa sick people, dadka xanuunsan ama dadka xanuunsanaya ayuu u shaqeeyaa oo u adeegaa. hataa what does a policeman do? muxuu qabtaa ninka booliiska ahi? muxuu qabtaa? he isagu controls, wuxuu controlaa the traffic, gaadiidka ayuu controlaa. traffic, gaadiidka ayuu controlaa. what does a typist do? muxuu qabtaa teeb garaacuhu? muxuu qabtaa ninkan teebka garaaca? muxuu qabtaa? he isagu typist, wuxuu garaacaa letters, waraaqaha ayuu garaacaa. letters, waraaqaha ayuu dadka u qoraa oo uu garaacaa. what does a waiter do? muxuu qabtaa ninka mudalabka? muxuu qabtaa mudalabka ninka la yiraahdo? he isagu serves, wuxuu ka adeegaa in the restaurants, hoteelada dhexdooda ayuu ka adeegaa. hoteelka dhexdiisa ayuu ka shaqeeyaa oo dadka uga shaqeeyaa. what does a postman do? muxuu qabtaa ninka boosteeluhu ama ninka boosteejada haysta? muxuu qabtaa? he isagu delivers letters, wuxuu sameeyaa, wuxuu geeyaa waraaqaha ayuu geeyaa. letters, wuxuu geeyaa maxay? waraaqaha ayuu geeyaa. what does a shopkeeper do? muxuu qabtaa dukaan iibiyuhu? muxuu qabtaa? he isagu sells, wuxuu gadaa think, waxyaabaha ama ashyaada in the shop, dukaanka dhexdiisa taal ayuu gadaa. what does a cleaner do? maxay qabataa nadiifsadu? she iyadu cleans, waxay nadiifisaa all the rooms, dhammaan qolaalka ayay nadiifisaa oo ay ka shaqaysaa. what does an accountant do? muxuu qabtaa xisaabiyuhu? muxuu qabtaa? he isagu keeps, wuxuu ilaaliyaa the accountancy, xisaabaadka ayuu ilaaliyaa. accountancy waa xisaabaadka. what does a soldier do? muxuu qabtaa askarigu? a soldier, askarigu defense, wuxuu difaacaa the country, wadanka ayuu difaacaa. marka dhammaantood sida kaaga muuqata waa jobs, shaqooyinkii weeye oo kala duwan oo dhammaan aynu kusoo koobnay cashkan qaybtooda badan. kuwa kale ka sii hadhayna malaayiin weeye, way badan yihiin, lama soo koobi karo. laakiinse kuwa kalena insha Allah waa ka soo hadli doonaa. okay, aan sii socono. okay,
what does a pilot do muxuu qabtaa ninka pilotka kan diyaaradda kaxeeya muxuu qabtaa pilot baa la yiraahdaa ninka diyaaradda duuliya he isaga oo ninka diyaaradda duuliya waxa weeye flies wuxuu duuliyaa airplanes diyaaradaha ayuu duuliyaa airplanes diyaaradaha ayuu duuliyaa what does a journalist do muxuu qabtaa suxufigu muxuu qabtaa journalist do muxuu qabtaa suxufigu he isagu writes wuxuu qoraa for a newspaper jaraa'idada ayuu qoraa newspaper waa jaraa'idadii what does a nurse do maxay qabataa kalkaalisadu ama kalkaaliyuhu muxuu qabtaa nurse waa kalkaaliso ama waa kalkaaliye he isaga or ama she iyadu helps waxay caawiyaan the sick people dadka xanuunsanaya ayay caawiyaan ee jiran what does an architect do muxuu qabtaa engineerku muxuu qabtaa architect engineer muxuu qabtaa engineer de English ahaan baaba lagu yiraahdaa engineer marka architect waxa weeyaan waa ninka foremanka guriga iyo maxay tahay mashaariicda ka soo qaata dawladda ayaa loo yaqaanaa he isagu designs wuxuu design gareeyaa building macnaha dhismayaasha ayuu design gareeyaa what does interpreter do muxuu qabtaa tarjumaanku muxuu qabtaa what does an interpreter do muxuu qabtaa tarjumaanku marka laba tarjumaan baa jira mid la yiraahdo translator iyo mid la yiraahdo interpreter marka interpreterku waa ka directly laba qof oo wada taagan marka uu kala tarjumaya ayaa la yiraahdaa interpreter translatorkuna waxa weeyaan waa tagas to tagas macnaha tagas ayaa translate into tagas macnaha qoraal ayaa loo bedelayaa qoraal kale loo bedelayaa marka way kala duwan yihiin translator iyo waxa loo yaqaano interpreter marka what does interpreter do muxuu qabtaa tarjumaanku he isagu translates wuxuu tarjumaa languages luqadaha ayuu tarjumaa what does a receptionist do muxuu qabtaa maxay qabataa soo dhaweeyuhu muxuu qabtaa receptionist soo dhaweeye she iyadu works waxay ka shaqeysaa in the hotels hoteelada ayay ka shaqeysaa receptionist waa soo dhaweeye and what does a translator do waa kan idin sheegayaana waxa weeyaan ka luqadda isku tarjumaya qoraal u tarjumaya marka qoraal Soomaaliya ayaa loo tarjumaya qoraal English ah marka what does translator do muxuu qabtaa tarjumaanku isagu translates wuxuu tarjumaa text qoraalka ayuu tarjumaa what does a secretary do maxay qabataa xogayuhu muxuu qabtaa ama xogayuhu muxuu qabtaa isagu answer wuxuu ka jawaabaa phones telefoonada ayuu ka jawaabaa oo ka hadla what does a farmer do muxuu qabtaa beer quwaluhu muxuu qabtaa ninka beerta qoda waxa la yiraahdaa farmer ayaa la yiraahdaa ka muxuu qabtaa farmer beer waluhu muxuu qabtaa isagu works wuxuu ka shaqeeyaa in the farm beerta ayuu ka shaqeeyaa what does a player do muxuu qabtaa ciyaartooygu ciyaartooygu muxuu qabtaa sidoo kale waxa la yiraahdaa footballer waxa weeyaan waa ciyaartooyga waxa la yiraahdaa footballer na waa la yiraahdaa player na waa la yiraahdaa marka muxuu qabtaa ciyaartooygu footballer ciyaartooygu plays wuxuu ciyaaraa football kubadda cagta ayuu ciyaaraa ama kubadda cagta ayuu dheelaa hadba sidaad ku fudud adiga marka dhammaan ereyada ku jira waa ereyo aad u badan waana shaqooyinkii dhammaantood aan sii socono okay and what does an engineer do muxuu qabtaa engineerku muxuu qabtaa an architect na waa la yiraahdaa ninka mashaariicda dawladda ka soo qaadanaya engineerku designs wuxuu design gareeyaa building dhismayaasha ama dhismaha ayuu design gareeyaa what does a dancer do muxuu qabtaa jaasuhu ama kan jaasaya muxuu qabtaa a dancer macnaha jaasuhu dances wuxuu ka jaasaa in the clubs qoobabka ayuu ka jaasaa and okay what does an air hostess do maxay qabataa gabadha air hostesska ah ee diyaaradda la socota ee diyaaradda ka shaqeysa dhexdeeda maxay qabataa iyadu service waxay ku adeegtaa oo ay ka shaqeysaa drinki cabitaanka and meals iyo cuntooyinka kale inay dadka soo gaarsiiso diyaaradda saaran ayay ka shaqeysaa gabadhaasuna
what does a bus driver do? Bus driver do muxuu qabtaa dareewalka basku muxuu qabtaa? He isagu drives wuxuu kaxayaa a bus, baska ayuu kaxayaa. What does a signatures do? maxay qabtaa fanaanku muxuu qabtaa? Signatures fanaanku sing wuxuu ka heesaa at concerts, meelaha loo yaqaano wuxuu ka heesaa riwaayadaha ayuu ka heesaa. Concerts riwaayadaha ayuu ka heesaa. marka cashkaas waa cashar aynu u bixinay jobiska qaybtiisii hore. halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. qaybta xigta intaynu u gudbi doono oo kasii xiiso badan halkaasaan kusoo gabagabeynaya cashka caawa. aad ayaad ugu mahadsan tahay daawashada cashkan aad daawanayso. waxaan kaa codsanayaa inaad videoga ku samayso subscribe iyo like aad ku samayso saan usoo badino haddaad casharada noocan oo kale ka heshay. halkaas ayaan kusoo joojinayaa. wixii kugu adag commentiga igula soo wadaag. halkaasaan ku joojinaya caawa. cashka xiga oo kasii xiiso badan aynoo ahaato. bilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.